سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوضي المالين وعن وناكسان ميلكاستو أجوكتان إيا ولباسي والبو مقال كينا ويديسو غاريو كسو دوادا برنامج كينا عيارها أو أنكو قادا ديجي دونو نيمار oo uqdad u qaaday shakhsi ka hor istaagay in uu ka mid noqdo kooxda Barcelona rumeeyana riyadii ku dhaxnoolayd sidoo kale barnaamijkeena waxaan ku qaadaa dhigi doonaa wax waliba oo aad ugu baahan tahay ciyaarta ugu xiisaha badan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ee darbiga waqooyiga London taasi oo dhaxmari doonta kooxaha Arsenal iyo Tottenham halka La Liga Spain ay isku heli doonaan kooxaha Real Madrid iyo Villarreal qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan inta uu hawada ka baxayo ugu horeyn haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka hana naga iloobin inaad la agsarto muuqaalkan mahadsanid halkani waa Tolito Channel aan ku bilaabanne kooxda reer Spain ayaa guud ahaan suuqa xagaygan waxay si weyn isugu dayday inay dib ula soo saxiixato xidiga garabka ugu ciyaara kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr. laakiin musalsalkii dheeraa ee muddada soo qaatay ayaa waqti xadirka kan wuxuu u eg yahay mid ku soo idlaaday hab waji gabax leh oo labada kooxood ayaa ugu yaran 200 milyan oo euro ku qiimeeyay xidigan waxaana ay Barcelona miiska soo saartay heshiis ka kooban Tidobo iyo Ivan Rakitic silamida Ousmane Dembele oo hal xil ciyaareed oo amaah ah ku soo qaadanaya garoonka Parc des Princes intaasi ciyaartoy oo lagu daray lacag dhammaan saddexda ciyaartoy ayaana waxaa la aaminsan yahay in gabi ahaanba ay noqdeen kuwa go'aankaasi ka soo horjeestay laakiin ugu dambeyntii Tidobo iyo Ivan Rakitic ayaa aqbalay in ay qayb ka noqdaan qorshaha dib u soo laabashada ee Neymar Jr. laakiin waxa meel adag ka istaagay qorshahaasi Ousmane Dembele oo curyaamiyay in Neymar mar kale dib ugu soo laabto garoonka Camp Nou Neymar ayaana da'yar kareer Faransa u arka waqti xaadirka kan mid ka hor istaagay in ay rumowdo riyadiisii dib u laabashada ee Camp Nou ka gadaal markii uu diiday in uu qayb ka noqdo qorshahan walow ay isku dayeen mas'uuliyiinta ugu sareysa ee kooxda Paris Saint-Germain iyo waliba sidoo kale kuwa Barcelona in ay ku qanciyaan Ousmane in laga dhaadhiciyo aragtida uu ku aadayo horyaalka Ligue 1 Faransa laakiin riyadaasi ayaa gabi ahaanba waxay ku soo dhamaatay hal aan wacnayn sida ay tilmaamayaan wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya cariga Spain sidoo kale sheekada dib u soo laabashada ee Neymar Jr. ee fashilka ku dhow waxa wax ka qoray wariyaha caanka ah ee lagu magacaabo Guillem Plega kaasi oo bogiisati watarka ku soo qoray Neymar iyo dadkiisa aad ayay u careysan yihiin waa wax aan xilli horeba macquul ahayn taasi oo ah in fariin lamida midda ay bixinayso kooxda iyaga ma awoodaan in ay qanciyaan Dembele waqtigan si gaar ah ayuu ugu kooban yahay ayuu soo qoray wariyaha caanka ah ee lagu magacaabo Guillem Plega oo kamida wariyaasha ugu afka dheer xagga dalka Spain dhinaca kale maanta waa maalin ku weyn horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo libaxyada lan isla markaana u ooman in ay ka soo kabtaan daqara ka soo gaaray caradii Anfield Road ayaa garoonkooda Emirates Stadium waxay ku macsuumi doonaan kooxda Tottenham oo iyadana doonaysa in ay ka soo kabato guuldaro xanuun badan oo ay ka qaabishay kooxda Newcastle United kulan ka tirsan toddobaadkii saddexaad ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waana kulan weyn oo noqonaya derbigii North London waxa uu soo dhici doonaa saacadu marka ay tahay abaare 6:30 daqiiqo ee xilliga geeska Afrika waa ciyaar aad u weyn oo dadkoo dhanna si weyn ay u wada sugayaan haddii aynu eegno markaan wararka labada dhinac waxa ugu muhiimsan macallimka kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa si cad u sheegay in ciyaarta tan uu diyaar u yahay laacibka reer Turki laakiin qaatay jinsiyadda Jarmalka ee Mas'uud Ozil markii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan waana suurtagal in kulankan uu ku soo bilowdo Hector Bellerin iyo Kieran Tierney ayaa dib ugu soo laaban doona tababarka buuxa ee kooxda Arsenal ilaa iyo bartamaha bisha September halka kulankan uu ku soo degdegay ama hoosta uu ka soo galay Robin Holley oo isagana soo laabashadiisu ay tahay mid dhow dhinaca kooxda Tottenham maxaa ka cusub macallimka kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa la filayaa in saxdiisa uu dib ugu soo celiyo Dele Alli kadib markii uu ku soo laabtay dhaawac dhanka muruqa ah dhinaca kale xidigaha kale ah Kelly Walker-Peters ayaa qolka dhaawacyada wuxuu kula biiray ee Tottenham xidigaha kale ah Foyt
Tunjai Ndombele iyo Ryan Sansoyon. xidiga lagu magacaabo Eric Dier ayaa isna dareemaya dhibaato sinta ah iyadoo lala socon doono xaaladiisa guud inuu qayb ka noqon karo ciyaartan iyo in kale. markanna xaqiiqooyinka ugu muhiimsan ee ciyaartan, kooxda Arsenal ayaa guuleysatay 2 ka mid ah 10 kulan ee ugu dambeeyay Premier League oo ay la ciyaartay kooxda ay sida weyn u xifaaltamaan ee Tottenham, waxaana ay haysataa 10kaasi 2 kulan oo guul ah, 5 barbardhac iyo 3 guul daro. labadaasi guul ayaana yimid iyadoo lagu ciyaarayay garoonka Emirates Stadium, qaasatan labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay isla markaana la soo dhaafay. sidoo kale kooxda Tottenham ayaa guuleysatay 1 kulan oo ka mid ah 26 kulan ee ugu dambeeyay Premier League oo kooxda Arsenal ay ku booqatay garoonkeeda Emirates Stadium, waxaana ay ka haysataa 1 guul, 10 barbardhac iyo waliba sidoo kale 15 guul daro. kulankaasi oo Tottenham ay badisay iyadoo joogta Emirates Stadiumna wuxuu ahaa mid ku soo dhamaaday 2 gool iyo 3, ciyaartaasi oo dhacday bishii November 2010 markaasi oo ay ka soo laabatay 2 gool oo Arsenal ay kala hormartay Tottenham. 5 ka mid ah 14 gool ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ay iska dhaliyeen kulankani u dhaxeeya labada kooxood ee Arsenal iyo Tottenham ayaa ahaa rigoorayaal ama gool kulaad. ma jiro kulan Premier League ah oo rigoorayaal ka badan la iska dhaliyay kulankani xiisaha badan ee u dhaxeeya kooxaha Tottenham iyo Arsenal. kulanka kaliya ee ka badan ayaana noqonaya ciyaarta had iyo jeer dhexmarta kooxaha Everton iyo Newcastle United, kaasi oo isna la iska dhaliyay ilaa iyo 18 rigoore. Harry Kane ayaa dhaliyay 9 gool, 9 kulan oo horyaalka Premier League dalka Ingiriiska uu ka hor yimid kooxda Arsenal. kaliya Wayne Rooney oo 12 gool ka dhaliyay Arsenal, Robbie Fowler oo 7 gool ka dhaliyay ayaa ka badan marka la eego kulamada horyaalka inta gool uu ka dhaliyay gool magafaha reer England ee Harry Kane markasta uu ka hor yimaado kooxda Arsenal oo ka mid ah kooxaha ugu awooda badan qaaradda Yurub. Christian Eriksen ayaa isna 1 gool u jira in uu noqdo ciyaaryaankii shanaad ee konton gool ka dhaliya horyaalka Premier League una ciyaara kooxda Tottenham. si kastaba weligiis gool kama dhalin 11 kulan ee ugu dambeeyay tartamada oo dhan uu ka hor yimid kooxda Arsenal, mana jirto koox intaasi oo kulan uu ka hortagay isla markaana gool uusan ka dhalin. laacibka lagu magacaabo Christian Eriksen oo ahaa xidig mustaqbalkiisa aanan la hubin muddooyinkii ugu dambeeyay, laakiin waa ay fashilantay riyo kasta uu uga mid noqon karay kooxda Manchester United. sidoo kale kooxda uu hogaamiyo macallin Zinedine Zidane ayaa habeenku caawa iyadana marti u noqon doonta kooxda Villarreal kulan ka tirsan horyaalka La Liga Spain. ciyaartaasi oo xilliga Geeska Afrika la daawan doono 10 habeenimo ee xilliga Geeska Afrika. waa ciyaar kale oo lagu go'aamin doono waxa ay ku tooran tahay xilli ciyaareedkan kooxda Real Madrid oo garoonkeeda Santiago Bernabeu barbardhac kula dhaafuweysay kooxda Real Valladolid toddobaadkii dhawaa. wararka ugu muhiimsan ee kooxda uu hogaamiyo macallin Zinedine Zidane waxa ka mid ah kooxda Real Madrid ayaa la dhibaatoonaysa dhaawacyo, waxaana Villarreal ay wajihi doontaa iyadoo haysanin qayb ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan sida Isco oo noqday ciyaaryaankii ugu dambeeyay ee kooxda Real Madrid ka dhaawacma isbuucan. xidiga xulka qaranka Spain ee Isco ayaana liiska kula biiray xidiga muhiim ah oo dhaawacyo ugu maqnaa kooxda Real Madrid sida Eden Hazard, Marco Asensio iyo sidoo kale James Rodriguez. dhinaca kale kooxda Villarreal ayaa iyadana waxa muhiim u ah oo ka maqnaan doona ciyaartan Alberto Moreno oo dhawaan ay kala soo wareegeen kooxda Liverpool ee ka dhisan gobolka Merseyside, halka Robin isna sidoo kale uu noqonayo laacib kale oo dhaawac ku seegi doona ciyaartan ay kooxda Villarreal la ciyaarayso dhigeeda Real Madrid oo ka mid ah kooxaha ugu awooda badan qaaradda Yurub. xaqiiqooyinka ugu muhiimsan ciyaartan ee kugu qasbaya in aad daawatana waxa qayb ka ah 5 ka mid ah 6 kulan ee ugu dambeysay oo labadan kooxood ay yeesheen waxay ahaayeen kulamo goolal la iska dhalinayay, taasi oo la micno ah in kulankan uu yahay mid kale oo xasaasi ah oo kooxda kale shabaqadeeda ay gaarayso. xaqiiqada kale ee kugu qasbaysa in aad daawatana waxa qayb ka ah
Real Madrid ayaa dhalinaysay 2 gool ama wax ka badan saddexdii kulan ee isku xigtay ee ugu dambeysay oo ay ka hortagto kooxda Villarreal, taasi oo la micno ah in kooxda uu hogaamiyo macallin Zinedine Zidane ay diyaar u tahay in weeraro jiha badan ka imaanaya ay ku qaado shabaqada kooxda Villarreal, halka kooxda Real Madrid iyadana sidoo kale xusuus gooni ah ay ku yeelanayso in 10 kulan oo kamida 13 kulan ay booqatay garoonkaasi in ay ahayd mid guuldaro qaabilaysay. 9 kamida 11 kulan ee hore ee garoonkan lagu ciyaaray ayaa kuwa booqanaya waxay dhalinayeen 2 gool ama wax ka badan, taasi oo la micno ah in baryahanba ay iska ahayd kooxda Villarreal mid aan sidaasi u adkayn, laakiin haatan waa isa soo dhiseen, waxayna diyaar u yihiin u dagaalanka kaalmo hor leh iyo weliba sidii ay ku noqon lahaayeen xitaa ku guulaysiga horyaalka La Liga Spain. guud ahaan barnaamijkeennii ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. saaxiibayaal waa naga inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah insha Allah. saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan